qabanqaabada doorashada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa u muuqata mid maraysa gabagabo guddiga doorashada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si weyn u diyaariyay goobtii loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada ee maamulka koonfur galbeed ayagoona sheegay inay qalabkii loogu talagalay doorashada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya imaan doonaan maalinta bari ah Maxamed Suldaan Maxamed waa gudoomiyaha guddiga heer hoosaadka diiwaangelinta musharaxiinta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa warbixin naga siiyay sida ay u diyaariyeen hoolka doorashada loogu talagalay waanu diyaarinay halkan aad arkayso kuraastan waa 6 musharax halkan waa tiimka kusimaha madaxweynaha iyo tiimka 134 xildhibaan 15 guddiga doorashada oo iyagana baarlamaan 2 guddoon oo xaggaas international community-ga odayaasha dhaqanka baarlamaanka martida dawladda federaalka ururada bulshada rayidka saddexda gobol mas'uuliyiinta ka socon doonta qaybta lagu casuumay halkan degmada Baydhabo Allahu Taala holkana sidaa buu u diyaarsan yahay idinkana TV-giina iyo waxa weeyaan TV-ga dawladda iyo idinka baahda saxaafadda baahinteedana waa wax loo baahan yahay insha Allah Taala marka soo dhawaada insha Allah Taala waxaan rajaynaynaa berito in la keeni doono agabka loogu talagalay halkan in laga shaqeeyo sida kombiyuutarada nooca digitalka ee dambe casriga printero loogu talagalay inay maartay 3 daqiiqo kale ay printer gareeyaan 149 warqad hal mar inay soo saaraan marka berito imaan doona iyaga shaqooyinka qaabilsana alaabtaan Nairobi laga soo iibiyay maanta xamar bay tarsid ku tahay bari Baydhabo insha Allah berito inay soo gaari doontaa waana idin kala wadaagi idin sheegi doonaayo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shaacir Umar Baale ayaa si weyn u shaaciyay inay dhici doonto doorashada 19 November oo ah maalintii loo istaamiyay inay dhacdo doorashada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sabtahay telefishinka KGS sidaad u aragtid hulkan indhaha macalinku ah kulay doorashada waqti aan sheegnay 19 waxaan rajaynaynaa insha Allah Taala inay qabsoomi doonto والله ماشي هذا أنكو فدين ماشي لو قتل المشرحين توا حل بانادي باش عالم إن إيش محلها حل بانادي فدرالك وضياش دقنك يو ورد بولشة حاجة بشارينا سقالة تمكن إن يدور شيء بعدون إن شاء الله تعالى هذه إلى نفترض تست وحاول اسمه جيران أول فرصة تكنيكال وكل على واحد نقول مقنط هذا ما شاء الله قارن وانا سوق جارتي قاريرنا وانا مقنط بير يوحكي بين وانا سوق جارين خير يكون دمانيس إن شاء الله bulshada fariinteeda arrimo doorashada insha Allah Taala ayagana doorashadan in ay ka qayb qaataan dhanka amniga inay isdijiyaan waxaan ku dadaalina 19 inay dhacdo waana dhici doonta insha Allah guud ahaan bulshada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhigto taagaya sida ay u dhici doonto doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo sugaya waxyaabaha ay ka soo bixi doonaan doorashadaasi Ibrahim Macalimow TV-ga caalamiga dawlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo